بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال meel walba naga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijkii martida kalsan toddobaadkan oo idinkaga imaanaya studio aynu ku leenahay magaalada Muqdisho waxa marti inoogu ah Ciise Diro waxa uu kamid yahay abwaanada Soomaaliyeed isla markaana waxa uu imika booqasho ku jooga magaalada Muqdisho mudana ku soo dhawow Kalsan TV studio-isa magaalada Muqdisho gaar ahaan barnaamijkan aad maanta martida inoogu tahay ee Kalsan TV aad u maasantahay deeq runtii waan idinka mahad celinayaa adigoo ah deeqo oo igu soo dhaweeyay studio-ha Kalsan TV ee magaalada Muqdisho iyo dhammaan shaqaalaha iyo maamulka Kalsan TV ee Muqdisho soo dhawow aynu ku leenahay Ciise waxaad kamid tahay aqoonyahanada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada aadka suugaanta iyo sidoo kale riwaayadaha aadka wax uga qoro isla markaana arrimaha jaceylka aad uga falanqooda Ciise daawadayaal waxa uu inoo sharixi doonaa isla markaana faahfaahin buuxo inaga sii doonaa riwaayado dhowr uu sameeyay iyo booqashadan iminka sababta uu Muqdisho u joogay iyo sidoo kale booqashooyinka uu ku tagay qaar kamid ah gobolada dalka mar labaad ayaan studio-ha Kalsan kugu soo dhaweynayaa bal waxaad faahfaahin naga siisaa ujeedadii aad ku timaada magaalada Muqdisho mahadsanid mar kale runtii horta Muqdisho waa wadankeygii Soomaaliya caasimadiisii waqti badan aan moogaa familkeygii iyo asxaabteydii iyo dabcan dadkii aan macrifadayno dhan degan sidaas horta waa qaybta koowaad aan u imaaday magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo kamid ah wadanka Soomaaliya tan labaadna dabcan waxa jooga dad badan oo bahda saxaafadda iyo inta wax qorta iyo suugaanta kamid ah oo iyagana aan shaqo wadaagnahay marka howlo badan ayaan wadanka ku imaaday in badanna waan moogaa waana ku farxay ilaa haddana ku faraxsanahay joogitaanka aan Muqdisho joogo goormad imaada Muqdisho runtii Muqdisho dhowr bilood ka hor aan imaaday adiga hadda 3 bil waa ku sii dhowdahay xilliga aan Muqdisho imay muddo kooban aan joogay dad yar oo qaas ah la kulmay oo markaa hawlo naga dhaxaysay ka bacdina waan ka sii gudbay qaar kamid gobolada dalka Soomaaliya ayaan u sii gudbay haddana waan ku soo laabtay watan maanta halkaan isla fadhino gobolada safaradoodii hadii aanu aadno gobolkee ugu horeeyo safarka aad ku gaartay horta waxaan ka dhacay gobolka Hiiraan in doorahan joogay wayna jiraan haddana gobollo kale oo dal kamid oo aan tagay sida Garowe iyo qaar kamid ah gobolada dhexe dhammaan goboladaas waa dana yar aan lahayn baan u tagay waxaan ku soo laabtay haddana aan hadda ka imaaday gobolka Hiiraan maantana waa tan soo fadhinaa Hiiraan waxaa ka jira sidoo kale in fatahaada webiga uu sameeyay hadii aad magaalada marmarto oo dadka barnaamijkan aad daawanaya ee Kalsan TV aad sharaxaad ka siiso fatahaada webiga Shabeelle ma la kulantay mise ka hor baad timaado magaalada Muqdisho waan la kulmay fatahaada iyadoo markaas bilaa ah ayaan joogay oo xaafado yar yar ee magaalada kamid ah laga qaxayo oo dadku ay xaafadaha wali macnaha biyo soo gaarin gurmad weydiisanayaan iyo in u qaxaan wax la sheegay in xoogaa ay sii korortay laakiin runtii marka loo barbar dhigo kuwii hore ee dhici jiray wali ma ay gaarin lehmadkii aan beherkii ugu xumaa ee la soo mari jiray fatahaadiisku tan ka horeeyay beledweyne gaar ahaan Hiiraan hadii ka soo gaarno oo beledweyne safarkaagu ay ku jirtay waqti intee la eg ayaa ka soo wareegtay xilligii beledweyne aad tagtay mise markii ugu horeysay aad gaartay ahayd beledweyne run ahaantii wuxuu kamid yahay gobolka Hiiraan oo horta caasimadu yahay waana gobolka anigu shakhsiyan aan gobol ahaan ka soo jeeday aan ku dhashay hase yeeshee waxaan moogaa muddo dhowr 10 sano ah sidaa darteed waxay kamid ahayd guriga noqoshadeedii ama soo arkistii aan ku soo booqday aan kula soo kulmay familkeyga qaar kamid ah oo halka jooga iyo dabcan deegaankii aan ka soo jeeday imaashahadii magaalada Muqdisho iyo safaradii gobolada aad ku tagtay misleeda natiijadii aad ka lahayd waad gaarto imika waa ay ku gabagabo maadaama aad bixi rabto aad iyo aad runtii horta hami aad u weyn ayaan hadda wadanka ka leeyahay kaasoo ah inuu wadanka Soomaaliya yahay meel lagu noolaan karo la imaan karo dad badan oo qurbaha jira qurba joog ah waqti kala fog ama kala duwan baa ku noolaadeen ayaa waxa laga yaabaa in aaminsan yihiin Soomaaliya in tahay god baahal ee cagta la soo dhigi karin anigu marka aan sidaan fikirkii u talax tagsaneen haddana dabcan waan ka yara qabay baqdin iyo oo meeshaas laakiin hadda waxaan ogaaday inay tahay meel la imaan karo nolol lagu sameeysan karo ummadda joogta lala qaybsan karo waxa ay ku haystaan marka runtii anoo ka faa'iideysanayo jaaniskan waxaan dhihi lahaa qurba joog badan oo Soomaaliyeed qaarkii yimaaday arkay waaba arkeen qaar ka dhiman ee rag iyo dumar leh ee wadamada kala duwan caalamka ka jooga inay wadanka yimaadaan arkaan wax ku biiriyaan dadka hadda jooga ee investmentiga iyo maalgelinta ku sameeyay macnaha nabadan ay kala qayb qaataan aad u maasantahay safarkaagii hadii aynu ku soo gabagabeeyna inta
ujeedadii barnaamijka aan ka lahayn iyadoo daawadayaasha aynu u sharaxi doono waxaa ka mid ahayd abwaanada Soomaaliyeed maqaalo badan oo daawadayaasha iyo warbixino kale oo soo gudbi doono goorro intaan wareysi ku guda jirno balse marka hore horta goormeed ogaateen abwaanta horta ilaa hadda anigu abwaan weyn isuma aqoonsani ma dhahayo anigu abwaan baanahay kulley adiga iyo dad badan oo kale way igu yiraahdaan laakiin anigu abwaan inaan ahay macnaha isku ma tirinayo sababtoo ah abwaan anigu dad badan aan u aqaanaa oo rag iyo dumar leh oo de wax kala duwan oo aad u nacfila Soomaalida soo hordhigay hase ahaatee qofba mar unbuu fikir intuu ku dhasho oo ummadiisa sirada lagu arko dadka marka qofka u sheegay inuu qofkan abwaan yahay qofkan inuu caaqil yahay qofkan inuu maaragtay qof wax soo saari karayo laakiin qofku wax waa isku daya isagu goorma marka fikir kugu jira aad jeclaysatay inaad bulshada u soo bandhigto runtii marar badan horta waxa jira qofka waxa uu ku wanaagsan yahay uu la dhashaa jirkiisa ku abuuriyihiin dhaqdhaqaaq ku jira waa laakiin wuxuu la sugaa jaanis oo mariyo hadba marka way jirtay muddo aad u dheer in macnihii wax jirkaada ka gubanaya asleedahay tolo waxaas ama tiraada xagee marisaa yaa ka caawinaya waxbaad markaas ku muuqanaya asa ahaatee muddo aan sidaa u sii fogeyn ayaa koox runtii wariyaal u badan oo aad u akhyaaro adduunkana laga wada yaqaan oo ku nool wadamada qurbaha gaar ahaan wadanka Ingiriiska ayaan isku biiray isku biirida xogaa anoo ka dhaxgalayo abwaanimadaadi waxaad sheegtay in wax yar uun ee ka soo bilaabatay maskaxdaada wixii ku jira ugu horeeyay hees ha ahaato geeraar ha ahaado gabay ha ahaado maxay ahayd wixii ugu horeeyay astiri waa tiri kartaa oo bulshada u bandhigi kartaa waa su'aal macquul ah markaad meel joogto waxbaa kuu sawirma markaas waxa laga yaabaa inaad geeraar camal ku sheegto haddii daruuf ku qabsato waxbaa carabkaaga iska qabtaa marka waxaa jirta sheekooyin ama tixah fara badan oo marxalado markaas kala duwanaa aanoo ku sugnaa aan isaga hadaaqay tii ugu dambeysay ee hadda macnaha la taaban karo haddaan soo qabto anigu ma rabi jirin runtii inaan intaan wax tixo la dhaho waxaasoo ninkaasi ka yimaadeen oo dadka xataa waa isaga kii abuuradnaa run ahaantii ma jeclayn oo dhaho waxaanaa sameeya hal arko ama dadka fanaaniinta ama u dhiiba ama wax lamida marka waxaa jirtay qiso mar dhacday oo ay qabsatay ayaan anigoo iska hadaaqayaan eraya ka dhahay marka nin aan saaxiibanahay Xuseen Shir Liraa Ingiriiska jooga ayaa maalin inagoo sheekaysanayna san war u wadnaa waxa ka soo baxdanay sheekadan aan mar ku hadaaqoon iska iro marka Xuseen uu qabtay wuxuu rinayo arrintan arrin macquul ah waan heesan caadi ahayn anigoo la yaabano Xuseen hees ka dhigay ilaa haddana hawadii ku jirtaa heestaas wuxuu magac looga dhigay Muna way jiraan waxyaabo kale laakiin aan weli soo shaac bixin aniguna aan runtii u arkaynin in waxaan heesba ka dhigaba isaga geegaarayay waa heestii ugu horeysa aad tirisa ama erayadii ugu horeysa maskaxdaada ka soo baxda oo bulshada u soo bandhigtay iyo fanaaniinta aad dhex dhigto heesta marka erayadeeda wax nooga sheegi kartaa horta heestu waa yani ama tixdaasi waxay ahaaday kadib markii dib hees noqotay markii hore tixbi anigii ahaaday moogtahay aan ku hadaaqayay waxay ahayd sheeko jacayl qof markaas wax meel fog inay idii yeelaan aad tuhmayso oo muddo ka bacdi isagu iska rartay ay meeshii ka guuray markaad isku daydo inaad qofkii bal dib u xiriiriso contact iyo bal wax aad raadisane de aad waxba heli wayso xataa qofkii aad weysid meel aad u martay iyo meel jaan cirib dhigay xogaa inaad sarbeebto ama la hadalkiisa hoos dhigtay adoo mahadsan Ciise oo daawadayaashana si fiican dad waxa jiraan xogaa erayda si fiican u fahmi karin macnaheedu haddii aan isku dayo u faafahiyo waxay tahay waxaa tiri qof baa xiriir inaga dhaxeeyay qofkii meel baad ku ogeed qofkii yoo tagay oo kale ama meeshii ama halkii aad ku ogeed qofkii aad ka weysay macnaha qofkii oo adiga xiriirkaadii kala isku sameeyay oo macnaheedu isa ka iloobay adiguna aad wali u haysato qofkaas inuu wax kula hayo saasaa ka samaysa marka erayada qofkana daawadayaasha inay fahmeen ayaan jeclaa bal erayada haddii aad noogu luuqaysa ama xogaa inooga sheegto waa fiicnaan lahayd heestii Muna ee uu sameeyay Ciise aad iyo aad isla markaana uu ku luuqeeyay fanaanka weyn ee Cabdi Shire waa Xuseen Shire Jooqle Xuseen Shire jaamac yarjac mirahaas waxa la yiraahdaa anigoo musiibo iyo mool caashiq ku galay maankii xiskayga iyo maskaxdii halbowlaha aad ku meersantaa meel waliba kugu qoray inaad maya tiraado macnaha sheekadii naga dhaxayso isu kay macnayso ay meermeerisa ma wax igu haboon ba anigoo
musiibo iyo macnaheedu mashaqo aad u weyn ka soo maray markii hore because waxaad ogtahay gabadhaha gaar ahaan kuwa yaryar markii hore lala qaadayo xoogaa waa may marka hore waa adag tahay laakiin marka dhexe waa laga yaabaa in xoogaa wax kula fahamto marka dhib badan aan ka soo maray xiriirkan ku dheeshay markii hore rafaad baan u soo maray markii dambe waa taabo galay kaalin qaad oo noqday sheeko fiican ay ahayd rajaan ka lahaa adigu si aan lama filaana uga guurtay meeshii oo dee kaliga aad iska raratay haddee qofka wuxuu ku guuray inaa ogaato soo ma fiicneen dee qofka waxaa la ogaadaa markii uu kula hadlo ku yidhaha sababtaas kaga guuray laakiin hadduu mar keliya xirto albaabadoo dhan ee adib iyo cirib meel jaan cirib dhiga adib u weys markaas adigu unbaa isla hadlaya ma ogtahay wixii ay kula tahay baa hadal ku hadaaqaysaa aad iyo aad umahadsanta marka heestaa miraheeda waxaa iska leh Muna ayaa la yidhaha heesta eryadeeda aadka u macaan oo hadda uu abwaanku inoo sharaxay waxaa iska leh Ciise Diro waxaana ku luuqeeyay fanaanka weyn ee Xuseen Shire ciyaar jecel muusigada iyo laxanka ayaa saaray laxanka Xuseen Shire saaray muusikadana Karaama saaray heestaas waa heesta keliya ee dadku aadka u dhageystaan ee albunada Xuseen Shire kamid ah طبعا هيسا حسين شري marka heesta sameysay waa sax aan ka dhaxgalay heesta marka sameysay ma istiri erayada markii hore aad sameeynaysa iyo hadda farqi weyn u dhaxeeyo marka aragtay in heesi la saaro music casriya oo luuq macaan ay ku laran tahay erayada marka la qoro iyo qofku markuu ku luuqayna waa kala duwan tahay ma istiri heestan oo sidan ba ma filaynin sida hore ku sheegay anigu maba qorshayga ma ahayn waxaan inta hees noqdaan music la saaro laxan la saaro fanaan la istaaga mikrofon la qaato ee waxay iska ahayd cilad aan bas cariir dib markaa jirtay oo yani iska dhehoon iskaga maaragtay arabkaada isaga hadaaqo heesta aad iyo aad waa sax heesta marka heesta kale kaaga dambeeyay ma jirtaa ama gabay ahaan u sameysay runtii cidi weli ma qaadin ma ogina waxa dhici doona laakiin wax badan oo kala jiray oo la mid aha qorshahaas qof la amaanayo markaas si wanaagsan wax yeelay oo de xiriirku hagaagsanaa oo erayal loogu talagu amaanay baa jira wax fara badan jira oo hadda aan maaragtay maanta soo koobi karin hadda marka jacaylkii halkaas ku dhawaado Muna jacaylka Muna iyada dhameysay aad ma santaa abane waxaa jiray magac aad iyo aad caan kuugu noqday oo bulshada Soomaaliyeed qaar badan oo daawaday isla markaana dhageystay ama hadalheyntood ay jirto hadda magaalada Muqdisho intii aad joogtana meelo badan lagaaga yeeray abwaan Guure runtii horta Guure waa runta hadda muqdishaaba igu roono dadku xoogaa waxa laga yaabaa in qaar ku fiiraan laakiin gobolada qaar kamid ah goor luqyada jidadka yar marka marayso waa dadku inta badan gadaale kaaga wacayaan markaas oo fiirsana waxay ku sheegayaan in macnaheedu magacaas dadkii wada qabsadeen marka magacaasna saa sheegto wuxuu ahaa magac aan ku metelay sheeko taxana ahayd oo aan runtii ka sameynay nolosha Soomaalida ku nool wadanka dibadiisa hadba sidii marxaladaha kala duwan ay marayso marka anigu magacaas ayaa nasiib u helay inaan ku jiro waa maasanta magacaas horta waa magaca baxay oo dadka badan ay ku yaqaanaan magacaagii Ciise iyo Guure marka la isbarbar dhigo ma istiraahda Ciise waaba baxayba oo Guure ka xoog badan waxyaabaha iga yaabay waxa kamid ah runtii dadkii aan isla koray waqtigii inta la ka isla soo joognay markii maanta igu wacayaan Guure war Ciise madii lowdi isdiiro baa leedahay xageed ma waa ogahay wax yar kadib adana Guure ku leeyahay marka maraha wax siraada tolo armayda hawada ku wada gashaa hawada waa galaada soo dadka dhan Guure ku leeyahay daawadeen waa maasanta hadii magacaas ka soo laabano daawadayaal wali waxaad naga daawaneysaan Kalsan TV studios magaalada Muqdisho barnaamijka martida Kalsan waxaana toddobaadkan marti inoogu ah Ciise Diro oo ku magac dheer odo Guure waxaa jirtay riwaayad ama sheeko aad iyo aad taxano u ahayd isla markaana dad badan iyo ka hadleysay maxay ahayd mowduucyo kala duwan mirir jacayl sida kuugu dhalatay abwaankii sameeyay adigu baad ahayd horta mirir jacayl runtii anigu keligay ma sameyn laakiin kaalin weyn baan ku lahaa gaar ahaan qaybta ugu horeysa riwaayaddu taxano waaye waana sheeko istaba taalo waxaan aad uga mahad celinayaa si hagar la'aan dadkii horta isaga xil saaray ee u soo wada saaray ee ugu horeeyo saaxiibkii Cali Ar oo isagu runtii ka ahaa soo saare iyo qofka barnaamijka runtii cameraman oo ka ahaa soo saaro ka wax far badan oo ka Cali Ar xataa qoraaladashan oo kamid ah wax uu ka qoray fikirka markii ugu horeeyay yar baa dhaliyay kala foga la yiraahdo oo Koonfur Afrika jooga markii uu dhaliyay inagu halkii baan ka sii qaadnay oo hadba maadaama asagu aanu joogin meesha oo rabo inuu ka hadlo waxaan
kusii hagaajinay marxaladda nolosha dadka ku nool wadamada laisku yiraahdo westernka amba reer galbeedka marka qaybihii hore saasay ahaayeen qayb koowaad labaad saddexaad ay riwaayaddu leedahay iyo ilaa afraad marka adigu runtii waqti aada u badan aan gelinay innagoo is dhehayno bal soomaalidu ha iska dhex arkaano miraayadda marka qofku fiiriyo oo isaga uu miraayadda hor istaago wuxuu u jeedaa sida uu yahay markaas leeyahay meeshaan iska bedel ama meeshaan waa okay ku haysa sidan marka waxaan isniri bal soomaalida annaguba aan ka mid nahay sidaan u nool lahay hadba intii karaankeenna aan ka soo qaadno waxaan marka ku bilownay nolosha qurbaha ulajeedadoonana waxay ahayd inaan qaabka ugu sahlan ee dadku ay u wada fahmi karaan aan kusoo gudbino luqadda lagu wada fahmi karo waxaanan rabnay inaanan ku ekeyn keliya kuwa gudaha xataa aan ka hadalno kuwa wadamada carabta ku nool siday u nool yihiin dhib iyo dheef waxay haystaan aan kusoo bandhigno waxayna ahayd sheeko socotay marka riwaayadda sidaasay ahayd runtii fikir aada u badanaa naga galay waqti aada u badan qoristeeda iyo maxaa la yihahdaa iyo isku helinteeda waxaan mar labaad rabaa inaan salaan guud hawada u mariyo gruubkii oo dhan oo aanan hadda hebel iyo hebel dhihi karin oo dad aad in oo yani ka wada qayb galay sheekadaas aada umahadsan tahay Odagure waxaa jirtay in riwaayadan qaybo badan loo sameeyey intee qayb ka koobnaa intee si qayba baxday si rasmi waxa hadda hawada u galay oo internetada iyo meel kasta laga heli karaa telefishinka kalsanne aan runtii aada uga mahad celinayo oo ahay telefishinka ugu badan ama kaliya aan dhihi karo waa telefishin kaliya si joogto ah Soomaalida uga qabtiray taa waxaan uga jeedaa hadda socodkaygii aan gobolada uga imaaday meel kasta marka waxa lagu leeyahay xalan kalsan ka fiirsanayay marka kalsan way ku mahadsan garab istaaga in siiyeen jawaabtu waxay tahay marka qaybaha baxay ee 1 iyo 2 ahaa laba qaybood baxday oo aan u kala dhignay qayb koowaad iyo qayb labaad waxa dhiman oo hadda diyaarsan saddexaad afraad iyo shanaad oo hal mar aan wada dhignay oo wada gabagabay ah ka soo ku hal mar aan wada dhignay marka qaybtaasna way taalaa wali si official macnaha hawada internetka looma gelin laakiin way taalaa meelo badan oo adduunka ka midana waa lagu daawaday riwaayadaha qaybtii la daawado waxaa ka mid ahayd qayb adiga iyo gabadha xaaska aad ku jilayseen isqabteen aad leedahay iyadu ay ku leedahay caruurtii aan geena xamar oo maxaan ka doonaynaa aad leedahay adigana abtiyaashoodan soo tusayna caruurta waa u wada abti dadka dhane adeeryaal u geenaynaa yes waa runtii waxay ka mid ahaaday meelaha sida qaaska ah aan ugu cabiraynay ilmaha qurbaha ku noolay siday u hadlaan waxaan uga jeedaa haddii aan yara hadalkaa isku aadiyo gabadhu waxay leedahay meesha waaba ku wareerna dhowr mar aan isku dhacnay waa ku rafaadnay aan ka guuro oo aan u guuro Soomaaliya gaar ahaan walaalaha iyo familkeygii hooyadeyda iyo ciddii aan anagu aan ka soo jeeda aan dhex tagnay leedahay halka ilmaha loo raro aniguna waxaan ku leeyahay mayo hadiiba la rarayo aniga walaalahay iyo familkeyga la geeyay ilaa waa adeeryaasha ilmaha marka adiga kuwiina oo abtiyaal u ah loo geeyma sababtoo abti halkan ay uga daaleen taa waxaan uga jeeday waa cilad jirta oo dadka qurbaha ku nool u yihiin cunug kasta ee reer galbeedka wadamada la isku yiraahdo ku noolay waxa la wixii arka abti uu leeyahay waxaana u sabab hadaan qiyaasay badana waxa gacanta ku haya waa hooyada ilmaha waxa la wixii marka yimaada abti uu leeyahay hatta hadduu ajnabi yahay oo macnaha oo dareemo abti uu leeyahay hadduu ninka cunuga dhalay dhasho adeer u yahay hatta abti uu leeyahay marka ereyga abti la raaxiisa loo maqabay halkan aan ku nacnay Yuruban kula daalay aan adeeryaal u geeyo oo aan luqadda adeer soo baro abti way ka daaleen shaqadu saasay ahayd ma sha Allah waa hadal yar oo murtile ay ku jirto runtii badan ay ku jirto aad ba dadku u fahamsan yahay ciladaas inay jirto oo cunug adeer leh waa adagta inaad ku aragto meelahaas soo adeerada abtiga qaybta laga baraay adeerna in laga baro soo wanaagsan marka aan raro adeer soo baro ilmaha shaqadu sidaas ay ahayd waxay ahayd aan u dirayno hooyooyinka ilmaha dhalay inay kala saaraan dadka soo booqanaya oo ay dhahaan wariya abti ku maana adeer ku yahay adeer dheh dumaashigeed oo ninka ilmaha dhalay la dhasha imaanay cunugii abti buu leeyahay raali ma yani maba sii dhageysanaysaba war abti ku maana adeer ku dhamarna ma afkeeda ka soo maraayo waa hadal yar oo murtilo oo filaya inay aad uga heli doonaan isla markaana mar rab ay ka heleen Soomaalida halkaas kuna riwaayada feedback badan kaaga imaaday bulsho badanna aad way u daawato aad bay u xiiso badneen talooyinka ugu badan ee riwaayadan laga siiyay maxaa kamid ahaa talooyinka
nala siiyey dhinacyo kala duwan loo soo marsiiyey sida internetka telefoonada dadka caadi aan isaga hor imaanayno intaba waxay ahayd horta dhammaan marka la isku wada daro positive u ahaa yacni inay wax sax ah oo quman aan qabanay ma arag anigu kulley cid cilad ka sheeganaysa sababtoo ah cid qaasa kumaba soconba waxay ku socotay rikoor guud oo nolosha ku saabsan marka taladana la siiyey waxay ahayd haddii aan wadi karno inaan wadno waxyaabaha aan aad runtii u xiiseeyey waxaa ka mid ah waddan kasta oo lagala soo hadlo wuxuu ku leeyahay annaga nagu soo bandhiga hadda Yurubaa ku base garayseen مثلا carabaha dadka ku nool oo kale shaqada yare ama wiilku gaariga la soo dhaqayo gabadha guriga la soo waxay wax noocaas ah hal lagu soo bandhigo kuwa Afrika ku nool ee wadamada la isaga xirayo oo maaragtay lacag hadii kala ma soconaysid leeyahay oo xataa soo sharci sax la qaban wuxuu ku leeyahay hal lagu soo bandhigo tusaale Nairobi kala la keeno oo macnaha marka qolo kasta oo meel ku nool markii aad contact ka hesho ama wada xiriirtaan ama ay soo qorayaan feedback waxay ku leeyihiin hal la waasiciyo fikradan oo yaan macnaha Europe kaliya iyo America lagu base gareynayna wadamada kale Soomaalida ee ku nooshaha loo qaybiyo waana shaka fiican hadalkii ama talooyinkii iyo codsiyadii noo yimaada sidaan u badnaan waa mahadsantahay eray ahaan waa laba eray marka la isku xiro riwaayada magaceeda dhan ama sheekada laga sameeyay mirir oo Soomaalida in badan ay fasiraad badan ka haystaan iyo jacayl oo Soomaalida badankeeda u yaqaanaan inuu yahay wax bulshada dhexmara ama rag iyo dumar dhexmara labada eray sida la isugu keenay macnaheed labada qayb ay isugu yimaadeen adoo sharaxaya dadka runtii horta hadalkaas dad abwaan ah oo naga abwaansan iyo anaguba waa isugu tagnay waan isku raacnay inuu hadalka markii la fiiriyo da'yarta xogaa waa ku culus yahay wax laga fahmi waayaan mirir waa sax oo waa wax halaabay oo wasakhoobay jacaylna dawaa wax la jecel yahay markii la isku dhijiyo waxa isku noqon hal eray oo ah jacayl wasakhaysan jacayl halaabay marka jacayl halaabay waa dhinacyo badan yahay wuxuu noqon karaa jacayl lamaano u dhaxeeya niyo naag wuxuu noqon karaa jacayl u dhaxeeya reer meel deganay oo burbur ku socdo oo wanaagi iyo mashxaradii iyo haadii Soomaaliland hadda qarab ku gabagabeynay iyo waxa kuugu daliil inuu jacaylka reeruhu xumaan ku dhamaanayo nin dhan oo odagii reerka isku haysto oo tala walba in loo hoos fadhiyo sugay oo markii laba eray la isku qabsado orod bax irida ka bacda xaggaas taalan ku dhiga la leeyahay macnaheedu war aaway noloshii iyo marka jacaylkii uu dhinacyo badan aan runtii ka fiirinay kaliya ma aanan ka fiirin lamaane ama wiili gabadh is jecel laakiin noloshii oo dhan ayaa markii jacayl ku bilaabato oo loo hamiyo haddana gadaal laga wasakhaynaya marka jacayl wasakhaysan halkaas ka imaaday ama miriray waa mahadsantahay odaguure ama ciisaan dhahaa dib mala dad guur tiraan ee Soomaaliyeed ay wada tireen waa sax qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena ayuu mareynaa waqtigan aad maanta na siisay iyo halkan studio aad nagu soo booqatay Kalsan TV anagoo kaaga mahad celinayna su'aalaha ugu dambeeya rabo inaan aad u soo kooban ku weydiiyo waxa kamid ah riwaayada qaybo badan oo la fiirsaday oo aad u xiiso badan jira dadkan ay aad su'aalo badan ka weydiinayaan ama iyagu iska weydiinayaan marka la daawanayo marka aad leedahay waxaan u socdaa Reerland maxaa ula jeedaa waa sax shakadaasi waxay ku jirtaa qaybahan saddexda ah ee isa saaran ee hadda aan wili internetka lagu faafin ama telefishinada si rasmi ah u soo daayin laakiin waa lagu daawaday tiyaatar fara badan ee adduunka ku yaala qaybtaasna oo saddexda qayb oo isa saaran ee aan wili la soo bixin waa qaybta completely aan anigu qoray runtii jawaabta su'aashaasi waxay tahay maamul goboleed wax la leeyahay nacfigiisa aanan sidaas loo sii fahmi karin ayaa Soomaaliya ka dilaacay oo tuulo kasta ninka joogay wuxuu isku day inuu madaxweyne noqdo markaas inta kale Soomaaliyeed uu ka soo haro marka taa kaliya anagu hadda ma mucaaradeenba fikirka Soomaalida aan ula midnahay inkastoo in ay dhiigana ku biirin aan ku qasbanahay waxa nooga sii daraaday ragga isa soo sharaxaya ee Soomaaliya inay yimaadaan qasaan doonayay waa rag qurbaha degan inta badan ma aha dadka Soomaalida maxaa kala gogooya ama maamulada waxay ahay ma ahan dad wadanka sii joogay waa dad kor ka imaada marka fariinta meeshaas aan ka gudbinaynay waxay ahayd nin reerkiisii wax ka qabala oo danyacay ilmihiisii gaangis iyo tuugo galeen oo xabsiyada qaar ku xiran yihiin ayaan qaybtaas ku dhigay anigu haddana aan u muuqan oo raba intuu Soomaaliya imaado reer u taliyo madaxweynaha marka magacaan weyna magacadii waa dhamaadeen Reerland hadda magac noo ah anaga
magac kasto magacdii waa dhamaadeen calan lama haayo xataa waxa laga fikiraa talow kalar noocan saarnaa calanka aan maamulku sameeyo oo maamulka saddex bilood intaana magaca maamulka leena calanka horta in laga fikiro sida u ekaysiina marka dib aad u weyn qurba joogto ku hayaan gudaha halkii la rabay wadanka in abaalkiisa gudaan xoolo geliyaan oo daaro iyo wax ka dhisaan oo caafimaadka isbitaalada ay wax u keenayaan in macnaha jarjaraan maamul magacooda la aqaan ku soo yaaciyaan marka nin reerkiisa dayacan yahay oo ilmihiisii xabsiyada ka buuxaan ee islaantiisii asagu banaanka kala jooga ayaa wuxuu kuugu bootaynayaa wadan gobol ama se maamulaan qabano dadaan cirka marinayaa saan isugu duwa kaliya marka sheekada halkaas ay ku saabsanay ma mahadsantahay sheekadan mirir jacayl ma laga yaabaa qayb ka mid in Muqdisho lagu dhigo si weyn hadda meelo badan lagu soo dhigay adduunka runtii aad baana loo xiiseeyay Muqdishona waxay ka mid tahay meesha Soomaalidu ay si sax u joogto inkastoo xaalad iska jiraan marka hadda waan ban joognaaba soo saarihii sheekada Cali Aar ayaa hadda jooga oo Muqdisho keenay waxaana uu doonayaa inuu Muqdisho ka dhigo waana wada joognaaba insha Allah marka sitimaankan hadda bilaabanaya ayaa laga yaabaa in xamar laga dhigo meelaha qaarna waa lagu sii shaaciyay wali lama taariiqeyn hoolkii ama hotelkii lagu dhigi lahaa lama sheegin laakiin insha Allah dhawaan waa la soo bandhigaa halkaas ayaana reer Muqdisho nasiib ugu yeelanayaan inay live u daawadaan ama ay qayb ka noqdaan riwaayadda Mirir Jacayl absolutely waxaan halkaa waliba aan doonaynaa dadka imaan doona feedback ay nasiinayaan inay runtii aad uga fiirsadaan oo waxa Soomaaliya aan uga cabiri karo ay noo sheegaan nagalana shaqeeyaan fikradan ilaa dad dhalinyaro isxilqaamay anaga aad u mahadsantahay ugu dambeyn maxaad leedahay ama hambaliya dire ama salaan dire ama Muqdisho waxaan ku arkood leedahay u gudbinay asxaabtaadii runtii aad u mahadsantahay mar kale horta waxaan rabaa inaan si gaar ah u salaamo guud ahaan horta inaan salaamo Soomaalida meel joogaan inta aan dabcan iskaranayna hawada aan bas live ah si qaas ah waxaan rabaa inaan u salaamo groupkii aan ka tirsanaa reer Mirir Jacayl waxaan iyana salaan aan la xisaabi karin aan halkan ka salaamayaa Kalsan TV shaqaalaheeda madaxdeeda meel studio ku leeyihiin runtii waa TV si weyn aan noola shaqeeyay intaas waa tahniyada waxa aan rabaa inaan Soomaalida u sheego Soomaaliya hadda intaan kale ka arkay rajo fiican ay leedahay xamar magaalo caalami ah agtaa meelaha qaar aan shalay maraay Yurub ma ku arag dhul saa u qurxan runtii ma sha Allah marka wadanka in la imaado oo laga qayb qaato horu socodka iyo wanaaga iyo nidaamka runtii waa kula talin lahaa aadna u mahadsantiin adana waqtigaada qaaliga kaaga mahad celinaynaa mahadsantahay daawadayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxa uu ahaa Ciise Dirow oo loo yaqaano Odaguure waxa uu ka mid yahay isla markaana dadkii gacanta ka geysay sheekadii aad ku xiisaha badneed ee Mirir Jacayl iyo sidoo kale suugaan kale aad u xiiso badan uu tiriyay studio Kalsan TV ayuu marti inoogu ahaa gaar ahaan barnaamijka martida Kalsan abaan aad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga iyo booqashadii studio Kalsan ee magaalada Muqdisho aad ku timaadeen mahadsantahay aad u mahadsantahay